السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى هوا إذن سلام ميلو بدون دافع ذلك جوتين كسر دوالة برتي يوتيوب كا نوح عجة فضلا ضع نقول سبتنا سبسكرايب جري هذا نقول سبيه هرم رجوت أد بد محسن تهلي جو جاga نون لايك جري سيدي رجل نون نخطط بدنا نو جادو إن شاء الله بإذن لايك ريمان تو حدونا إن كهالله إن دي في لو ترجية يندون إن كهالله وحيالك إلا سو كردم أبديت عن هلي أيندون إن نشر جريو أبديت عن هلي إن وحكي هلي لنا عمارتي جيبوتي يورينا سفارة كينيا إن xog aan sameeyay ama xiriir badan aan sameeyay la xiriirna isku daynay in maaragtay sababta ama maaragtay dadka Soomaalida lagu diidayo oo maaragtay negative loo soo siinayo ama dhinay loo soo siinayo ayaan kala xiriirnay marka tan safaaradda Kenya marka tan safaaradda kale oo maaragtay Djibouti waxaan kala hadalnay idan aan weydiinay maaragtay dadka maadaama ay Ethiopia Kenya ka carrayaan oo carrayaan dhankaas kale safaaradaas kale oo carrayaan wixii iyagana ku gudboon iyo wixii iyagana document ahaan ama wixii requirement ah laga raba ayaan weydiinay marka xog badan aan ka raadiyay aniga iyo asxaab kaleba waxaan soo helnay in ay maaragtay safaaradda Djibouti hada iyada ka bilaabo safaaradda Djibouti inay maaragtay capacity dadka qaadayso ay yar yihiin ay dad kale la qaadi karin ayna buuxsantay already marka dad kale lama qaabili karna ay yihiin message kaas insha Allah billahi karim waa idin soo dhigi doona xagga description ka idin soo wadaagi doona ayadoo English ah ayadoo Soomaaliya okay waxay yiraahdeen anaga waxaan qaadanaa oo maaragtay waxaan oo duutigeena yahay ama dadka qaabilayno waxa waaye dadka Djiboutiyaanka oo Djibouti degan dadka Yemen oo maaragtay qaxootiga iyo wixii soo cararay iyo wixii maaragtay Yemenkii maal oo lottery ku guuleystay ay qaabilayaan iyo maaragtay Northern Somalia ay qaabilayaan bas wax kale anaga qaabili karna ma laha intaasna waxa laga doonayaa marka adiga intaas ka socoto dad Djiboutiyan tahay kulli ID haysta ama baasaboorkooda haysta hadii oo maaragtay dhinacan kale oo maaragtay ay tahayna Northern Somalia waxa laga rabaa dhalashooyinkii oo maaragtay Somaliland iyo wixii oo maaragtay mishdignaashii addresskii wixii ka doonayaan hadii Yemen tahayna qaxootigaas tahayna waa cadeynaysaa in maaragtay Yemen tahay oo maaragtay warqadihii haysatid kulli Yemeninta ayagana kulli janradooda kala carabtay kala socdaan oo maaragtay dadka oo barnaamijkan ka hadlo ana marka waxaan doonayaa inaan u cadeeyo dadka Soomaalida jooga Soomaaliya oo maaragtay xaggaas u bedelinay waxa lagu weydiinayaa maaragtay sababta aad u soo bedelinaysid كودي مركب كواد بوكا أو أبلاي جرين كرت مش هذا اللي قاعد أديك أسكاله current address كا هذا كديجان كرت مركب كواد ومارك تسام وجولستين أو كحارستي لكن فاست ده كحارستي كينيا وحدنا كبدلين نسيت maybe سؤال بدنا الجويدين أو محدث بدرت حق حق سو بدلتي مركا ما وين يصير reason أو معرفة سبب أو كون نقطة waxaa dhici kartaa wadankaas aniga igu fogaaday wadankaana ii dhawaaday fiisiis wadankaas waa abalay gareystay markana marka ii yardhow qaraawan xaggaana ii joogta maybe Soomaali maadaama degto saasaa dhici kartaa in isla kara oo maartay good point tahay marka safaaraddaas waxay dhahday waa buuxa aan totally wax aan maaragtay qaabili karo oo qaadi karo ma jirto yar aan saaxiibana asagana maaragtay oo barnaamijkan ku jiro ayaa ila soo hadlay wuxuu weydiiyay waan abalay gareeyay oo dhahay waxaan codsaday in location ka bedesho oo u bedesho Djibouti Addis Ababa ku qornaa asaga Djibouti u bedesho maadaama oo tii Addis Ababa ku qornaa Addis Ababa tiisa wuxuu la ekaatay inay maaragtay shaqeynayeen maadaama ay wadanka dagaali wax ka jireen safaaradana xigneed hadda waa la furay waana la soo dhajiyay asaga appointmenting waa loo qabtay marka laakiin waxa loo sii sheegay in maaragtay location ku bedeshay oo maaragtay ku bedeshay Djibouti oo haddana lagu soo dhajiyay schedule lagu soo sameeyay oo interviews lagu soo dhajiyay Addis Ababa marka su'aasha asaga ka cabsana oo ila soo wadaagay weydiiyay waxay ahayd maxaa la dhihi karaa Nuux actually waan u sheegay asaga gooni oo la hadlay laakiin adinku waxay ugu sheegay yani inay maartay taasna buuxdo hadii in case kugu dhacdo labada meel ba adiga ka wareersan hadii meel lagu soo qoro meesha kalena adigna abalay gareysay waxa dhici kartaa in meeshan ku maartay xagaasan tagay ama xagaasan fiisa ka helay ama xagaasan qaabilaad ka helay oo dad aan qaraabanaha joogay dadkaas oo socdaa dhici kartaa oo tagay waa sababta aan dhihi karo maartay oo waa possible la qaadan karaa safaaradda Kenya waxay dhahday anaga waxaan discrimination aan sameynayna ma jirto Soomaalida anaga gooni uma tagad gareysanayno goonina maaragtay wax oo discrimination ama kala soocid aan sameynayno ma jirto laakiin dawladda Mareykanka ma aqoonsana wax documenti ah kaliya ma aha waxbarashada documentiyal badan ay diidan tahay oo ka imaanaya dhanka Soomaaliya ka imaanaya diidan tahay I don't know exactly what that point means laakiin
taasi ay ka cabaadayaan u diidayaan oo maaragtay ay leeyihiin anaga maaragtay ma aqoonsanin. Aniga markaa xaggaas qiimeeyey aniga oo fiiriyan waxay la ekaatay maadaama siyaasiyan ay isdiidan yihiin Soomaaliya iyo maaragtay Kenya oo xogaho political issue jiro, saas daraadeed in isku diidayaan macquul ah. marka insha Allah bidin karim wixii qeyr ku jira ilaahna waafajiyo dadkii oo maaragtay Soomaaliya ka imaanayo oo xaggan interview wax ku qoran yihiin waa sugayna insha Allah bidin karim interview ha maran waan usoo duceynaynaa wiilkii idin soo socodsiinay xaaladiisa oo maray interviewga wali asagana oo wax u update oo helay ma jirto ilaa hadda administration ay u saaran tahay marka bi u saaran tahay maaragtay statuskiisa insha Allah bidin karim kulli asagana inaan guuleysan oo rajaynayna. marka intaasaan jeclaysiin in la soo wadaago oo idin la soo socodsiiyo. always haddii dadkii aad tahay kamid tahay hadda sugaya natiijada oo la guuleysatid fadlan Nairobi ka dhiganin ilaa siyaasadda iska bedesho. siyaasadda hadda Soomaaliya iyo siyaasadda Kenya way isdiidan tahay saa la socotiin oo waxyaalo badan ay isdhaafsan way hor isdhaafsan jireen. marka haddii guuleysatid 2023 aad ka mid tahay gooninaska insha Allah oo May lagu dhawaaqo oo ka mid noqoto dadka guuleystayaasha ha ka dhiganin bilis Kenya ka dhigo Ethiopia ama Djibouti ka dhigo sida ma aragtay adigana ma chance u heshid oo chance-ka ugu wanaagsanaado. marka insha Allah bidin karim soo koobaya aan jeclaysiin in la soo wadaago. wassalaamu calaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.